olol nadaafadeed uu horkacayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejnayriisu ayaa waxa maanta laga fuliyay qaybo badan oo kamid ah wadooyinka caasimadda Muqdisho ololahaas oo ay ka wada qayb qaadanayeen waaxda nadaafadda iyo waaxda gaadiidka ee dowladda hoose xamar iyo sidoo kale maamulada degmooyinka inta uu socday ololahaas nadaafadeed ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu ganacsatada meheradaha ku leh wadada wadnaha ku wacyigelinayay in ay door ka qaataan ka hortagga nadaafaddarida si loo horumariyo bilicda caasimadda gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Mudane Cabdifataax Nuur Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camri Shakeyti ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadeed ee maanta la sameeyay annagoo waajibkeena shaqo gudanayno shaqan saaka ka bilownay degmada Kaaraan inta u dhaxayso saldhigga ilaa isgoyska Sanca shaqo fiican aan ka qabanay waxaan soo kormeeray gudoomiyaha gobolka oo nagu la xisaabtamay hawsha sida aan u qabanayno ugu mahad celinayna kormeerka haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka waxaana diyaar u nahay gudoomiye har iyo haween inaan wax ka qabanno bilicda soo celinta caasimadda magaalada Muqdisho mudane gudoomiye adigana waxaan ka rabnaa inaad nala socoto aan nagula xisaabtanto annaga iyo degmooyinkaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejnayriisu ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay dhowraan nadaafadda iyo bilicda caasimadooda adeega nadaafadda inuu yahay adeeg asaasi ah qof walbana looga baahan yahay ganacsatada waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aysan ka qayb qaadan wax nadaafadda wax u dhimayo waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda xoojiyaan kaalin muglana ka qaataan qof kasta oo shacabka Soomaaliyeed ka mid ahna waxaan rabnaa inuu nadaafaddii qayb nagala qaato magaaladan waa magaaladaadii waa caasimaddii dalka caasimadaada nadiifso ilaasho intaas ka sokow waxaan aad ugu mahad celinaa haweenka Soomaaliyeed oo runtii mar walba na garab taagan markay noqoto olole nadaafad markay noqoto olole wacyigelin ayagana ma iloobi doono oo dadaalkooda iyo waxayna tusaysaa sida ay waddanka inay leeyihiin u aaminsan yihiin sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan inay ilaashadaan caasimadoodii magaaladoodii ay kaalin weyn ka qaataan ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa bahda saxaafadda oo runtii aan kaalintooda marnaba la ilaawi karin sida ay bulshada u gaarsiinayaan waxyaalaha muhiimka u ah inay ayagana nagala qayb qaataan wacyigelinta barnaamijka ololaha nadaafadda oo weliba annaga aan wadno tartan lagu tartansiinayo degmadeen nadaafadeeda u wanaagsan yahay degmadeen u wanaagsaneen Nuur Saciid Taaliil raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho